Atriishada caanka ee Bollywoodka Priyanka Chopra ayaa toddobaadkan qabsatay shaashadaha caalamka kadib markii lagu arkay iyadoo waqti la qaadanaysa Nick Jonas oo ah heesaa u dhashay wadanka Mareykanka. Nick Jonas ayaa habeenadii ugu dambeeyay la socday Priyanka Chopra oo ka mid ah atriishooyinka ugu saameynta badan Bollywoodka iyo sidoo kale Hollywoodka. Priyanka Chopra ayaa barteeda Instagram-ka soo dhigtay sawir uu ku jiray Nick Jonas iyo walaalkeeda waxayna ku soo qortay my favorite man, ragga aan aadka u xiiseeyo ama ragga dooqeyga ah. Sheekadaas ayaa dhalisay muran badan iyadoo la isweydiiyay xiriirka ka dhaxeeya Priyanka Chopra iyo sidoo kale heesaaga lagu magacaabo Nick Jonas. Priyanka Chopra waa 35 sano jir, Jonasna waa 25 sano jir. 10 sano ay ka weyn tahay heesaagan. Toddobaadkan gudihiisa waxaa lagu arkay Mumbai, balse labadoodii midkoodna ma qiran xiriirka ka dhaxeeya ujeedkiisa. Warbaahinada ugu waaweyn adduunka waxay soo warinayeen in xiriir wada noolaansho ah uu ka dhaxeeyo Priyanka Chopra iyo sidoo kale Nick. Sidoo kale Priyanka waxay sheegtay inay soo booqanaysay hooyadeeda si la mid ah walaasheeda oo ku sugnaa Mumbai maadaama aysan wax badan arkin. Bishaan bilowgeeda Priyanka waxay la kulantay heesaagan wax badan ay isku fahmeen marka la fiiriyo nolosha. Goobaha ay soo aadeen si Priyanka ay ula soo kulanto Priniti Chopra oo ah walaasheeda ka yar. Sidaas darteeda sheekadu waxay noqotay in la isweydiiyo sababta uu soo raacay Jonas oo isaguna heesaa ah. Dhamaadkii sanadii 2017 waxay ku kulmeen gala oo ku taala New York, balse sheekadooda sidaan uma weyneen. haddase waxay noqotay inay isla caawiyaan meelaha gaarka isla aadaan, sawiradoodii la baahiyo, waqtina isla qaataan labada jilaa.